الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa inagu food hayaa maalmo aad ugu qiimo weyn uguna qaaliya ummadayda Soomaaliyeed. waa maalmihii xorriyadda ay dadweynayaga Soomaaliyeed ay ku qaateen ama iska tuureen heeryadii gumaysiga. sida taariikhdu markay ahayd 26 Juun 1960 maalintii gobollada waqooyi ay ka madax bannaanaadeen gumaysiga Ingiriiska. taariikhdu markay ahayd 27 Juun 1977 waa maalintii iyaduna Jabuuti ay ka xorowday gumaysiga Faransiiska. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 1 Juulaay 1960 waa maalintii gobollada koonfureed ay kaga xoroobeen gumaysiga Talyaaniga, isla markaana ay midoobeen labada gobol, gobolka koonfur iyo waqooyi, ay wada dhisteen jamhuuriyadda hadda jirta Soomaaliya, jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya. maanta waxayna la joogaa wariye hore Abukar Boston iyo diblomaasi Soomaaliyeed. ku soo dhawow Abukar. صحفي عبد العزيز هذا ما سنتهي كل برنامج سواء متى ما يتنهي حتى روح نوقف قلنا السؤال هذا. سؤال شكواد انت نوقف قلنا وررد قبلنا دونكا في Soomaaliya ee sababta u ahaa xorriyadda maanta aanu ku haysano. marka hore si guud waxaad nooga dhiibtaa fikradda dhaqdhaqaaqyada gobonimo doonka Soomaaliyeed goormay ka codkeen dunida. عبد العزيز runtii waa su'aal aad u weyn, waa su'aal mugeeda leh, balse marka hore aan ka hormariyo adiga baan naga wakiila hambalyo aan u direyno dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba nagu hambalyeynayna iyadoo maanta ay tahay maalintii 26 Juun ee gobollada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysiga Ingiriiska. ayna ahayd markii ugu horeysay calan Soomaaliyeed laga taago dhulka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa fooday nagu soo haysaa iyadana 27 Juun oo 1970 iyadoo Jabuuti ay ka qaateen iyagana markaas xornimadooda gumaysiga Faransiiska. waxaa fooday nagu soo haysaa sidaas sidoo kale maalinta kooda Luulyo marka ummadda Soomaaliyeed marka hore aan niraahno hambalyo meel kasta ay joogaanba. marka haddii aan soo laabto aan fikrad gaaban aan ka siiyo Cabdi Casiis oo bilowgii qarnigii 20aad ee tagay dunida waxaa ka dhacay dagaal aad u waaweyn ayaa ka dhacay, sida dagaalkii koowaad ee dunida iyo dagaalkii labaad oo weliba kaasi ay dad badani ay ku leedeen. waxaana la qiyaasaa ama taariikhdu ay xustaa ilaa ay in ka badan 25 milyan inay ku dhinteen dagaalkaas, oo ay ku burburtay hanti fara badan, oo ay gilaafteen guryo iyo gaadiid intaba. marka adduunyadu waxaa sidoo kale la soo dirsay muxuu ahaa hoos u dhac dhaqaale oo aad u baahsan. marka waa waxa lagu yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo ama afka Ingiriisiga the Great Depression, afka Carabeedna lagu yiraahdo al-kasaad al-kabiir al-caalami. marka wadamadii iyagu markaas wax gumaysan jiray marka dagaalkii ku soo guuleystay waxay dejiyeen marka siyaasad ah in ay mustacmarado iyo dhulballaasi ay raadiyeen oo ay ka raadiyeen qaaradaha Aasiya Afrika si ay dib ugu soo gurtaan dhaqaalahooda. marka waxay qalinka ku duugeen heshiis ku caanbaxay Sykes-Picot waxay ahaayeen labada wasiir dibadeed ee wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska ay ahayd. hase yeeshee arrintaasi sida aad Cabdicasiis ay weydiisay waxaa ka dhiidhiyey dadyoogii la gumaysan jiray, dadkood ayaa ka dhiidhiyey, ururo ayaa ka dhashay oo markaa ka dagaalamayay. laakiin tusaale ahaan haddii aan soo qaato qaaradda Afrika oo kale markaan soo qaato urur dhaqdhaqaaq oo wadani ah oo gobonimo doon ah ayaa wuxuu ka dhashay dalkaas Liibiya. waxaana hogaaminayay haddii aad daawatay filimada ninka la yiraahdo Cumar al-Bataar, ninkaas ayaa hogaaminayay. waxaa kaloo iyana Algeria ka dhashay urur gobonimo doon oo ka lamid ah, waxaana hogaaminayay ninka la oran jiray Cabdiqaadir al-Jazaa'iri. sidoo kale Suudaana dhaqdhaqaaq gobonimo doon aad u ballaaran iyagana ka dhashay, nin la yiraahdo al-Imaam al-Mahdi ayaa isna hogaaminayay. sidoo kale waxaa meesha ka maqnayn Cabdicasiis ururka magaca u yeelay Afrika iyo geeska Afrika ee ka soo baxay waa ururkii daraawiishta Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay halyeeyii weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, kaasoo ahayd markii ururka keliya ee markii ugu horreysay caalamka ee qaaradda Afrika lagula dagaalamo gumaysiga kula dagaalamo diyaarado kula dagaalamo ay ahayd. marka Cabdicasiis oo nasiib daro ururadaasi iyaga ah umaysan habaysnayn qaab siyaasadeed maysan lahayn, waxaana horboodayay dariiqooyinka suufiyadda ayaa horboodayay ilaa marigii dambe ay ka dhismaan axsaab oo siyaasadeed oo markaa
dib ka sheegi doono insha allah. إن شاء الله. سؤال شلبات بعد وجود قلبنا أنا جو كفاية السودان لو معناتها إن أنا لك شفتيس أساس كأوروكا SYL سيدي وقبل عمي mahadsantahay cabdicasiiso waa runtii waa la ogyahay ururka SYL wax qabadkiisii in dalka uu gaarsiiyo xornimo waa runtaa su-aashay weydiiso waa su-aal akademika leh oo taariikh ah waana mudan tahay muxuu ah inaan kaaga mahad celiyo ururka SYL asaaskiisii cabdicasiiso wuxuu ku bilowday sida uu sheegay xubin ka mid ah xubnihii ugu firfircoonaa berigaasi xaaji maxamed xuseen oo si aad loo yaqaano oo ahaana muxuu ahaa xogayihii maaliyadda berigii dambe laga dhigay ayaa wuxuu yidhi waxaan lahaa dukaan yar kaasoo aan furtay markii aan dhammaystay waxbarashadayda diraasaadka islaamka weliba markaan dhammaystay ayaa waxaan furtay dukaan yar marka habeenada waxaa u imaan jiray marka cabdiqaadir sheekh saqaawudiin ayaa u imaan jiray oo isna noqday berigii dambe guddoomiyihii ururka SYL noqday marka isaga iyo cabdiqaadir sheekh saqaawudiin marka uu soo xiray dukaanka ayaa 9 fiidnimo waxay fariisin jireen goob cidla ah markaas waxay isdhaafsan jireen afkaarta dunida ka jirta dagaalada adduunka ka dhacaya waxyaabaha soo kordhay waxyaabahaas ka sheekan jireen marka habeenada ka mid ah ayaa cabdiqaadir sheekh saqaawudiin wuxuu ku soo qaaday xaaji maxamed xuseen wuxuu yidhi warniyow dhalinyarada Soomaaliyeed iskuullada waa dhammaynaa waxna ma hayno iyo mustaqbalkooda maxaan ka yeelnaa sideen ku kulmaynaa sideen afkaartooda ku dhisnaa ayaa waxaa leh marka cabdiqaadir sheekh saqaawudiin marka waxaa kaloo u yidhi shucuubteena dhibaatada lagu hayn waa arkaysaa oo waddankii meel muxuu ahaa aanay ka jirin mustacmarada jirto marka maxaanu ka yeelnaa ayuu yidhi marka wuxuu yidhi xaaji maxamed xuseen wuxuu yidhi arrintii waa u garaabay oo i weydiiyey cabdiqaadir sheekh saqaawudiin anna waxaan raadiyey yidhi marka saaxiibkay magaciisii yaasiin cismaan oo isna aad u xamaasisnaa oo fikradahaas oo kale qabay laakiin dhinac kale aan saaxiibka lahaa isaga iyo cabdiqaadir sheekh saqaawudiin ismay aqoon yaasiin iyo marka waxaa wada kulmay iyo xaaji maxamed xuseen iyo cabdiqaadir sheekh saqaawudiin ayaa wada kulmay waa fadhiisteen arrintii la soo bandhigay yaasiin aad buu soo dhaweeyey marka yaasiin wuxuu soo jeeda fakar ah inay furtaan naadi inay furtaan marka naadiga xaggeen lagu bilaabay marka wuxuu yidhi waxaan ku bilaabaynaa qol yar shaah lagu iibiyo laakiin arrimaheennana si sira siyaasadda si hoosa ayaan isugu dhigaynaa aduu calaa taxal sidii wixii ay ku bilaabeen xubnihii ayaa marka soo bilowday inay kusoo kordhaan ay kusoo biiraan dhalinyaro fara badan ayaa kusoo biirtay gobolladii waddanka ayuu ku baahay ilaa iyo laamo looyaacadda ka soo bilow ilaa iyo laamo ayuu ku baahay ururkii Ethiopia meel kasta ayuu gaaray marka horta sidaasuu ku bilowday ururkii haddana waxaan u galnaa su-aasha saddexaad waxaa la sheegay SYL inay 25,000 inay kor u dhaafeen haddaba 13-ka sidee lagu doortay 13-ka sidee lagu doortay waa su-aal muhiim ah oo runtii maadaama aad ka saqrisay in 25,000 oo xubnood ay kor u dhaafeen waa jirta arrintaas iyada ilaa maalin ka dambaysa lagu soo kordhiyey marka habka lagu doortay sida uu ka sheekeeyey xaaji maxamed xuseen wuxuu yidhi habeenka doorashadu ay dhammaatay taariikhdeeda iyo xusuusteeda weligeyga milaaway ayuu yidhi marka habeenka wuxuu yidhi dhowr habeen ayaa la ballamay oo ay ballameen dhalinyaradu in la doorto la soo saaro xubnihii maamul lahaa ama hogaamin lahaa ururka dhalinyarada ee SYL hogaamin lahaa marka waxaa jirtay marka dad u shaqeeya gumaystayaas u shaqeeya booliiskana ka mid ah dadyo muxuu ahaa baqdina isaga jirto oo ka baqaya gumaysiga ka baqaya weliba talaaniga ingiriis ka baqaya waxyaabo fara badan ayaa iska jiray marka dhalinyaradii maadaama ay saa dhacday habeen kastana lagu ballamayay arrintaas iyada waxaa soo xaadiray markaa shiro 5 habeen ah waxaa soo xaadiraya 23 ruux oo keliya habeenkii lixaad ayaa yaasiin wuxuu yidhi war habeen kasta ma imaan karayne caawaynan dooranaa aan dhammaystirnaa xubnihii yaasiin marka sida caadadu ahayd dadka islaamka ah iyo dadka Soomaaliyeedba intuu fariistay oo tiradii wuxuu ka bilaabay dhinaca midigta markaasuu 1 ilaa 13 ayuu tiriyey 23 ayaa meesha fadhida 13 markuu gaaray ayuu ku joojiyey then isaga oo ku jira nambarka 5aad ayaa marka waxay yiraahdeen xogeyaha guud xubnihii la doortay xogeyaha guud oo yaasiin adag ku dooranay halkaas waxaa lagu magacaabay guddoomiyihii oo noqday cabdiqaadir sheekh saqaawudiin oo noqday xaaji maxamed xuseen waxaa yaasiinna wuxuu noqday yaasiin cismaan wuxuu noqday muxuu ahaa xogayihii guud xogeyaha xagga maaliyaddan xaaji maxamed xuseen ayaa sidaas ku noqday xubnaha SYL sidaasaa lagu doortay halgankoodii ayay halka ka bilaabeen marka
1974 waxay sameeyeen marka barnaamij qorshahoodii ayay samaysteen waxay bilaabeen inay shaaca ka qaadaan oo ay ka baxaan wixii la saraysan jiray naadi weyn intay samaysteen ayay waxay bilaabeen qorshahooda barnaamijka ay shaaca ka qaadaan qorshayaashooda waxaa ka mid ahaa kasafaynta isticmaalka waddanka oo dhan min looyo caddo ilaa iyo laamo ilaa iyo muxuu ahaa raaskambooni inay ka saaraan waxay kaloo ay go'aan ku gaareen in la dhiso dowlad dimuqraadi ah waxay kaloo ay go'aan ku gaareen in dib loo soo nooleeyo qarannimada damiirka qarannimo in dib loo soo nooleeyo waxay kaloo go'aan ku gaareen in la dhowro heshiisyada dhammaan waddamada iyo dadyooga jecel nabadda sidoo kale waxay go'aan ku gaareen in la tixgeliyo xuquuqda dadka aan Soomaalida ahayn ee ku dhaqan laakiin dalka ee jaaliyadaha in la dhowro waxay kaloo go'aan ku gaareen in diinta islaamku ay noqoto diinta rasmiga dalka isla markaana shariicada islaamka lagu hogaamiyo dalka waxay kaloo go'aan ku gaareen in aan la soo qaadin arrimo ku saabsan soo noqoshada Talyaaniga bar dambe intaasay go'aan ku gaareen hase yeeshee marka xaalku halkaas uu marayo ay shaaca ka qaadeen inay markaan ay arrimahooda bannaanka ay soo dhigeen gumaysigu marka waa ka horreeyay waayo muxuu ahaa ingiriisku markaa xorriyad siiyey dadka inay idaacadaha dhegaysan karaan oo culaysyadii ka qaaday inay muxuu ahaa doodi karaan waxyaabaha culays ka qaaday dagaalka labaad kadib hadda laftiisa muusan jeclaysan arrintaasi marka waxaa dhacday marka wuxuu isku dayay marka talyaaniga wuxuu isku dayay inuu hor istaago arrintaas marka nin geela lagu sheegay magaciisa oo ay kutubta taariikhda aad ka helayso oo ahaa markaasi kaaliya u shaqeeya booliska talyaaniga ayaa la soo diray waxaa la yidhi tag bal naadiga haweeney ay furteen buuq ka dhalay si markaa buuqa uga dhasho aan rugsadii kala noqono ninkii wuu soo baxay marka laakiin ku-xigeenkiisa isna booliska ka tirsan ayaa soo baxay isla markii naadigu kaga soo hormaray arrintii uu sheegay ninkii waddada loo galay marka waddada marka loo galay halkii isna ka bilaabay dagaal iyo wixii buuqa markuu dhashay askar talyaaniga yimaadeen duqii magaalada berigaas joogay ayaa yimid adigu waxaa lagala noqday laysankii rugsadii lagala noqday yaasiin xaaji cusmaan oo socday cabdiqaadir sheekh saqaawadiine xaaji maxamed xuseen iyo xubno kale oo khaliif huud oo macallin uu ku jiray ayaa soo raacay waxay yimaadeen gobolka waxay yiraahdeen waa in loo soo celiyo rugsadeena annagu ma nihin dagaalamaya waxaana urur siyaasadeed oo nabad wax ku raadinaya markaasi waxaad wadaan waa wax soconaya maaha marka waxaa xanaaqay khaliif huud oo ayaa xanaaqaa la yidhi marka dhagax weyn intuu soo qaatay ayuu guddoomiyihii gobolka gaarigiisa oo yaalla albaabka hore ayuu wuxuu muraayada kaga jibiyey halkaas wuxuu ka bilaabay marka inuu yidhahdo Soomaali ha noolaato taxdiya Soomaali berigaasay soo bilaabatay marka Soomaali ha noolaato berigaas soo bilaabatay marka arrintu saasay dhacayso su-aasha ganacsiga oo kale haddaan u guud galo ururka SYL wax qorshe ah u deganaa miyay lahaayeen wax qorshaha u degan cabdicasiis waa hadda tallaabooyinka aan ku soo sheegay aan soo dhammaystirnay ayay ahaayeen oo in dalka laga sifeeyo isticmaalka heshiisyo lala galo waddamada nabadda jecel in la tixgeliyo xuquuqda dadka dadyooga muxuu ahaa ku dhaqan dalka ee aan Soomaalida ahayn waxyaabahaasaa ka mid ah diinta islaamka inay noqoto diintii lagu hogaaminaya dalka waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa waa gartay su-aasha kale u gadgalanaa maxaa xusuus wax ma ka xusuusan karaysaa ma ka xusuusan kartaa taariikhda dunida ay isku raacday Soomaaliya in ay hoos geeyaan qaramada midoobay cabdicasiis waa sax waa runtaa waa xusuusan karayaa qaramada midoobay markay arkeen ay u caalwaayeen dhaqdhaqaaqyada gobnadoonka iyo dirartooda ay u caalwaayeen ayaa waxay go'aan ku gaareen shir ay qaateen 22 bishii 11 1994 waxay go'aan ku gaareen jamciyadda qurumaha in Soomaaliya loo isgeeyo qaramadaba in loo isgeeyo muddo 10 sanadood ah lana gaarsiiyo muxuu ahaa dowladnimo iyo madax bannaan la gaarsiiyo markaasay go'aan ku gaareen taana waxa ku qasbay waxay ahayd dhaqdhaqaaqyada gobnadoonka oo aad u cuslaa siiba muxuu ahaa dhaqdhaqaaqii SNS-ta ee ka jiray waqooyiga iyo SYL iyo axsaabtii kale SYL iyo laftigooda taageeray oo ay ka mid ahaayeen digili mirifle banaadiriga jabhadii islaamiyiinta ururkii shaqaalaha aad bay u fara badnaayeen laakiinse kuwa ugu xooga weynaa waxaa ururka waqooyiga ka dagaalamayay oo SNS ahaa iyo SYL oo iyaduna oo berigii hore laakiin ay ahayd SYC Somali Youth Club ahayd laakiin markii dambe SYL magaca loo bedelay ayay ka mid ahaayeen marka sheekada saasay dhacday arrinta saasay ku timid oo xitaa waxaa dhacday marka oo Soomaaliya hal la hoosgeeliyay muxuu ahaa qaramada midoobay
كوي لاتنكي بيش كوي تمنات كون سال أفرتنكي لو كنا واقعي وأرنتينا لفولية أيا واحد عضي مركا إن إسلا أفر لاتنكي بيش تمنات كون سال كونتنكي إن حفلة دي وجوه الرئيسي وجمعية قرمها هي والله لفتي ذا 1945 ممكن دجالك قدام هذا دجالك قدام هذا حفلة دو وجوه الرئيسي دبل دو كواد إلا وقت الصومالي هي ده تاس لفتي جد وحسوس أدوين ومدة الصومالي أنا كوري قارمة مدوبي مركل لدسي حفلة دي وجوه الرئيسي سنة ودبل دجان واحد عادي كون سيال بقولي كنت كي وحنا لو وقت الصومالي هي لو وقت ما دام يدو كالنتي ذا هي درير تذكر درات حقوقية وبين مجالسين جود su-aasha kale haddaan u gudbo iyadoo taas ay jirto ururada gobanadoonka soomaaliyeed miyay isdhiibeen dhanka gumaysiga miyuu soo laba kaclay mise waa ka mira dhaliyeen halgankooda aad baad mahadsantahay wariye cabdicasiis ururadii gobanadoonka ahaa way ka mira dhaliyeen halgankoodii ismaanay dhiibin oo halgankoodii way sii laba jabaareenba oo waxaa dhacday in taasi marka in 1900 muxuu ahaa iyo 1954 markay taariikhdu ahayd waliba aan iraahday 6 bishii sagaalaad 1954 wareegta ayaa ka soo baxday golaha loo xil saaray inay xukunka gaarsiiyaan Soomaaliya wareegta ka soo baxday waxay ay qeexaysay markaas in Soomaaliya calan loo sameeyo astaan inay yeelato then subaxii ay taariikhdu ahayd 12 bisha 8 1954 iyadoo subax talaada ay tahay ayaa calankii ummadda Soomaaliya loo soo bandhigay intay fakarkayga gaareen ayay waxay doorteen calanka buluuga ee bartanka ku leh xiddigta cadaanka ee shanta geesood leh waana loo dabaaldegay xitaa diyaarada ayaa jiray calanka oo ka walhanayay oo magaalada haabayay dadweyne ayaa isugu soo baxay gobolada iyo Muqdisho intaba isugu soo baxay iyagoo u dabaaldegay calanka u dabaaldegay marka arrintaas waxay sii dhalisay marka in 28kii bishii 1959 in golihii uu soo saaro warbixin iyo bayaan uu ku sheegayo in horraanta July ay noqoto 1960 maalinta madax bannaanida ee Soomaaliya inay noqoto ayay soo saareen markay arrintaas ay soo saareen waxa iyana guddoonsaday oo la qaatay arrintaas iyada ah golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la qaatay oo 15kii bishii koowaad waa January 1960 magaalada Amsterdam ee dalkaas Holland Dag Hammarskjöld oo ahaa xogayihii qaramada midoobay ayaa meesha waxa uu kaga dhawaaqay in July ay noqoto horraanta July ay noqoto maalintii xoreynta iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed isla mar ahaantan Soomaaliya maalinta lagu biiriyo oo ama ay ka mid noqoto ururka qaramada midoobay inay ka mid noqoto nasiib wanaagsan 26 June intaan July la gaaray 26 June ayaa gumaysigii Ingiriiska wuxuu xorriyadooda siiyay gobolada waqooyi kadib markii uu u caalwaayay muxuu ahaa dhaqdhaqaaqyada halkaas ka jira iyo halgankooda uu caalwaayay kadibna 1 July-na Talyaaniga ayaa isna wuxuu siiyay 1 July 1960 gobolada koonfureed ayuu xorriyay sidaa hore u soo sheegtay hordhacaga ku sheegtayba kadibna waxay noqotay isla maalinta 1 July israacii ama midowgii gobolada waqooyi iyo koonfureed ayuu markaa dhisay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya su'aalada maanta inta ayay nagu wakeed maalin aad u qiimo badan weeyaan maxaad ummadda Soomaaliyeed aad u ralayeen ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa maalmo xusuus badan ayaa soo dhaafay taariikhdana waxaa dhaliyay wadad Soomaaliyeed baa dhaliyay halgankaasi iyo xorriyadda maanta aan ku noolaynayno iyaduna dad Soomaaliyeed u baas wuxuu intaas u soo dagaalamayay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in qof waliba uu dib ugu laabto damiirkiisa dadnimadiisa inuu dib ugu laabto waxaan dagaal inaan waxba lagu keenaynin khilaaf iyo muran inaan waxba lagu keenaynin ummadda waxay u baahan tahay in loo taliyo dhalinyaro waxaa jirta 30 sannadood ee aan ku jirno mustaqbal la'aan ku dhashay 30 sannadood ee dagaalada sokeeye waddanka jireen marka dhalintaas waxay u baahan mustaqbal in loo sameeyo iskuuladii ka soo baxeen jaamacadii dhameeyeen shaqo ma hayaan waxa loo baahan dadkaas in la qorsheeyo ay u baahan yihiin annagu dadkeena waliba idinka daadayna annaga dadkeena marka la yiraahdo xoogaa waxbaa soo arag laakiin Cabdicasiis adiga ahaan iyo dadka kula midka waxa ma soo arag qaarkood miday daadsan yihiin oo yaacsan yihiin marka waxa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay isku laabtaan la isku tanaasulo
la fiiriyo oo dib loo eego war dhalintaan mustaqbalkeena maxaynu ka yeelnaa waayo xorriyadda maanta aan qaadanayno dhalinyaro ayaa dhalisa dhalinyaradaasna waxay ka fikirayeen mustaqbalka dhalinyarada iyo dhibta dadka kale haysata ee shucuurta haysata marka waxaan ku oran lahaa ummadda Soomaaliyeed marka hore hambalyo marka labaad waxaan dhihi lahaa bal ilaahay ha loo laabto ha la toobad keeno ha la isu tanaasulo si waddankii dib loogu yeegalayo aad baa ugu mahadsantahay aad baan kuu soo dhaweeyana assalaamu calaykum adiga ayaa mudan wariyaysu dhafi Cabdicasiis hadda kaaga magaceliyaa maanta But Green Media.